munaasabad ballaaran oo taageero iyo cudud loogu muujinayay injineer Siciid Xanfadhe oo ka mid noqon doona doorashooyinka golaha wakiilada xisbiga mucaaradka ee UCID ayaa munaasabad ballaaran oo taageero loogu muujinayay waxa lagu qabtay magaalada Hargeysa. munaasabadani oo ay ka soo qayb galeen siyaasiyiin waxgarad coqaal iyo sidoo kale marti sharaf kale ayaa si weyn taageero loogu muujiyay injineer Siciid Xanfadhe oo u tartamaya doorashooyinka golaha wakiilada ee gobolka Maroodijeex. waxaana halkaasi ka hadlay mudantii iyo siyaasiyiintii ka soo qayb galay waxaana ay dul istaageen muhiimadda ay u leedahay in golaha wakiilada uu ka mid noqdo injineer Siciid Xanfadhe oo u tartamaya doorashada golaha wakiilada ee u mudaysan 31 May ee doorashadeedu ay ka dhici doonto Somaliland. إن شاء الله مركب كبوليستي صوابها أين أوصل قاعدنا إنجنيرنا وحوية وحين أباهن هاي قانا كان سومالينا إذ وحكو سوق لسا أو وحكو بيلسا أم بحيرات القوانين تيشرع لها النقطة أم بسياسة الجهة يتجد لها النقطة قف وحكو سوق ليا لو بهية سلاسة إنجنير توصل صعب صراحة النجم إنجنير سعيد ولها تيرا looga baqi maayo inuu waxa umada farafareeyo halka shakhsiyaadka la tartamaya aanay hantidu haystaan haysan sida aynu isku soo sinay iminka waxa la doonayaa cod kale u siino oo qofka siino Siciid Maxamed injineerka aan codka ugu shubno Siciid ilaahay wuxuu siiyey hibo dadkii الحريص وقديه قف قادر اكتاب سعيد ما انت لي سعيد قارسين لكن وين مغطى عده كسو بحيسا داعدك ما كون اكسن معوها الا تاغيرين الى المرشحه قادت وان سو بحي ان شاء الله تعالى intii halka fadhida waxa wakiil ka tihiin cid kasta oo idin ka dambaysa mid saaxiibtiin iyo mid wax isu diin mid idin ka dambeeyay waxa ka hoggalaysan 12 casho haray inaan seexan marka waxaan uga jeedaa guushu waxa weeyaan waa dacwada adiga dhammaan ka imaanaysa cidna la weydiinayo cidna la weydiinayo cidna lagu mado waxaan kaloo sheegayaa waxa weeyaan haddaad nimaad ka cadtiin laga garoonaado oo gacantu inay yibisaa ku gar noqon weyda ilaa wad galgalataa sidii neefka gorcay galgalan weyna annagu iyo injineerkaan u riidinaynaa waanu caddaysano innaga waxay noo golana rag iyo dumarba inaynu sidaa uu kaysa yidhi aynu ku tuntuunsanno injineerkaynu shaqaysanno oo laysakaraan habartu xaggeeda ka odaygu xaggiisa inantu xaggiisa maalinta ilaahay oo idmay insha allahu tacaala ee codayta inagoo astaanteena ka duulina astaanteeduna ay tahay dacwada khayrida ay ku dhanyihiin beesha Cabdalla Sacad aan ku taag kulli guusha waa la garanayaayo haddii nimca ka talaaqo guusha waa iska muuqataa danteedna de waa dacwada waxa la yiri hoodalay waxaan leeyahay dadka inaga maqan ee dhalanteedku hodayana iska kaalayo guusha soo raaca ilaahay beesha uu qoray Siciid dawuuba doona ilaahay bay u bareeyeen isagu ku guulaysto hadda aan soo xafilayaa way aragnimadayda xagga fuudadka marka aan eega maanta Siciididu soo baxayo aan dadka ku sii dardaaraya haddii magac xisbi maanta aynu ku fadhino ama magac taageero aynu ku fadhino xildhibaan in aynu qarannimadeena ilaalino wixii xaraf umada ku keenaya ilaalino sida dadka barkood u hadlaanaynaano hadal inagoo qurux badan aynu ka tashano tilmaano sidii wax loo qaban lahaa iyo sidii aynu hawsha u qaybsan lahayn iyo sidii ninka aan u gaarsiin lahayn halkaynu ku wadno ayuubaa muhiima inaynu aada uga hadalno tiina beeshan qiimaha badan ee Cabdalla Sacad runtii waa beel aad u qiimo badan run ahaantiina injineerka way soo saari karayaan waxaanad leeyahay injineerka 10 subaxnimo uu soo baxayay ku bishaaraystay habeenadaba waxaan ka shaqeynay muraaqibiintii wajaalaan tagay dacwadii baan ugu tagay injineer Siciid agabar baan tagay injineer Siciid iyo dacwadii baan ugu tagay illiimihii baan tagay dacwadii injineer Siciid baan taagay sheekh Muuse Ducaalaan tagay injineerku uu taagay kaamkii sheekh Umar baan tagay waa taagay ina naxar baan tagay waa taagay dacarquluq baan tagay waa taagay
26 June kooburi gacali macnaheedu hadalkooda badax xisbi ahaan idin bushaareenaya anoo ilaahayna la kaashanayo kalsooni ilaahay ka qaba inuu injineer Siciid sidaa ku soo baxay ayaan idin bushaareenay waxaa laydinka rabaa ninkaa injineerkaa keligiina inaan hawshaa ku eegiyo si uu hadhow wax noogu qabto hadday dhaqaalo tahay iyo hadday dadaal kala tahayba waxaa laydinka rabaa naf iyo maalba ninkaa inaad la barbar istaagtaan oo welibana beel ahaanna waa laydinku xamanayaa beel ahaanna waxa aad iyo aad Soomaaliland oo dhan caan uga dhex noqotay hiilkiina waa laydinka filayaa. ugu dambeynna waxaa halkaasi ka hadlay injineer Siciid Xanfadhe oo mahad celiyay taageerayaashii iyo sidoo kale siyaasiyiintii ka soo qayb galay madashani in uu wax weyn ka bedeli doono haddii uu ka mid noqdo doorashooyinka golaha wakiilada ee Somaliland. laakiin waxaan idin leeyahay maalintii aan arrinkan ay u dhacday inaan dabcayo soo doorashada tago 2-3 qof baan ahay maantana waxaan isleeyahay Cabdulla Sacad kaama maqnaa wax ilaahay ku maadiyo taageerada sida ay wada gacanteedu soo isku haysanayna waxay loo ballanaa kursiga wakiilada oo aynu gacanta ku dhigno xildhibaan kale loodo sidaa fududno taargeedkayduna waxa weeye markaan halkaa fadhiisto xeerka maalina in xeerka lagu dhaqmo Somaliland xeerka iyo qodobada iyo sharciga lagu dhaqmo markaas uu bayna wax inoo hagaagaya Axmed Khalid telefishinka Real Hargeysa.